mucjisadani oo ah mid lagu arkay magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Cali Xuseen ayaa waxa ku nool qoystan yara kuwaas oo awlaada ay dhaleen muuqaalkoodu ka gadisan yahay ka bini'aadamka qoyskani oo hore ugu noolaan jiray baadiyaha gobolka Togdheer kuwaas oo ahaa xoolo dhaqato waxayse ka soo ambabaxeen muddo laga joogo 10 cisho kadib markii ay saameysay abaartii dhawaan haleesh guud ahaanba wadanka waxayna ka doorbideen hadda ku noolaanshaha kaamka duleedka magaalada Burco ee Cali Xuseen Kayse Muuse Samatar waa aabaha dhalay 3 caruur ee muuqaalkoodu ka gadisan yahay ka aadamaha waxaanu nooga warbixiyay xanuunkani asiibay caruurtooda kaasoo sheegay inay ku dhasheen waxaanu walaalaha muxsiniinta ah ka codsaday inay u soo duceeyaan kuna soo kaalmeeyaan wixii ay ku dhaamaan saddex way inaan iyo laba hablood way inaan ka ugu weyn Cabdirasaaq Baaxina iyo labada hablood hodan iyo ayaan saddexduba inaan taa ugu yar kulli iyadoo inay ka duwantii baan qabaa aan ila noocahay labada kale laakiin isku mid way marka de xanuun de anigu aan magacaabi karo aan de magac u bixin karo de ma haya cilmi waa de farsamada ay ku dhashayna caynkaas ee maskaxda una hebel maskaxda yihiin carruurta islaamka waxaan ka codsanayaa marka hore inay duceeyaan haddii noo duceeyaan ilaahay noo bedelo waqti marka xigta de wixii wax noo tari karay inay naga caawiyaan xaga meel de hooyo aan ku hayno aanan de hayn aan ku lahayn magaalada marka de xaga taageeradaas aan ka codsanahay meel laanto de meel de xafidan lagu hayn karo soo kalmee una soo gargaar walaalahaaga muslimiinta ah Axmed Nuur Ciise Maxamed Samraawi telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco